soddonkan gawaarida oo nooca gaadiidka booliiska ayaa maanta lagu wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliya. Dawladda Qatar oo xiriir dhinaca wada shaqaynta la wadaagta dawladda Soomaaliya ayaa gawaaridani maanta ku wareejisay xukuumadda Soomaaliya. Madasha lagu kala wareejinayay gawaaridan oo ahayd xarunta dekedda magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo safiirka Qatar wakiilka uga ah dalka Soomaaliya. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka hadlay gawaaridan lagu wareejiyay. Anta waxa bilowday soddon Powerland Cruiser oo noo keeno oo dawladda Soomaaliya ku deeqaan oo loogu talagalay booliiska. Sidoo kale waxaan rabaa waxa kaloo jira qalab kale isugu jiro scan oo dadka lagu baaro ama markay dadka soo marayaan goobaha airportka ama controlada scanooyinkaas weeyno soo socdaan. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Qatar wuxuu balan qaaday inuu tababar u sameeyo ciidamada qalab qaybahooda kala duwan inuu tababar u sameeyo doono. marka hadda waa u jeedaan waa mahadcelinaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo safiirka dalka Qatar oo garabkayga taagan Hamza injineer Hamza Xasan isaguna oo mahadcelinaa. Maxamed Cali Weheliye Universal TV magaalada Muqdisho.